runtii fursad aanay haysan jirin dad badan oo Soomaaliyeed ba haysataan. Aan xasuustaa Soomaaliya toddobaatanaadkii oo gabadha iskuul timaada hadday shaar gacmo dheeraha xidhan tahay shaarka laga jaro. waa mujarrad shaar ma aha astur kale iyo wax kala toona. halkana waa arday iskuul iska baxaysa oo xijaabkooda sita. waa macnaha uga ballaaran bay tilmaamaysaa runtii. kelmadda quraan idin odhanaya waxay tahay tacliimtu ilaahay khalqigiisa la bartaa. waxaana baranaysaa waa afcaal ilaah, makhluuqaadkii alla abuuray siday u shaqeeyaan systemka aad u baranaysaa. ama chemistry ku sheeg, ama physics sheeg, ama biology sheeg, ama human sciences sheeg. waa makhluuqii ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala siduu u shaqeynaya ayaad baranaysaa. si fiican waxaad ula dhaqmi kartaa marka aad barato ilaahay warkiisana subxaanahu wa tacaala. waxaa idan cilmigu waa laba un, imaa inaad ilaahay ficilkii baranayso iyo makhluuqiisii, imaa inaad baranayso waxyigii uu kuu soo diray oo kalaamkiisiiya oo wuxuu soo waxyoodaya. labadu hadday kala tagaan oo aad makhluuqoo qura barato, waxay u badan tahay inaad tuug xariifa. tusaale ahaan saayir baan la siinayaa. waagii jaamacaadka la joogay ayaa waxaa soo galay professor hindiya oo dhigaya, waa niman engineera, electrical engineers baa loo dhigayaa. wuxuu dhigayaa bahashan kilowatt hourka la yidhaahdo ee derbiga ku xidhan ee dabka qiyaasta. sidee baa loo xadi karaa? waayo ninkani waa engineer loogu talagalay inuu system iska ilaaliyo. markaa waxaa la barayaa sidee bay suurtagal u tahay in la xadi karo. 5 dariiquu dhigay oo markaa bahashan lagu xadi karo oo lagu walaaqi karo. darsigii markii la qaatay kadib maalintii dambe ardadii magaalada gashay nin waliba heeraha intii uu garanayay ayuu maqluubka u soo xidhay. يعني علمي محو فائدة توب كردي وتوب حريفة ملس حريفة هي صوصة. أنا قد الله يا مركزي علم قيمة ليه هي مدخول دين هي دقن هي أخلاق وطن. تامك وطن وهو مال في عمل وقاريه. ما دام وقته وكوري هذا كله بدين مايو وحن ببادين هي اللوكسيكا والله تلمامي كوبا هوري ركاغاي. امتحاناتكii la qaadayay aad baa ugu mahadsantiin. waa wax maamulkiin iyo waalidkiiba ku farxaya iyo mujtamaca guud ee muslimiinta ee danaynaya ee da'yarta soo koraysa iyo waxbarashadeeda.